Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan Mustafa Magaalo oo u sharaxan xildhibaannimada golaha deegaanka ee magaalada Berbera oo si gaar ah telefishinka Goobjoog magaalada Hargeysa kula hadlay ayaa waxaan weydiinay in sawir guud uu naga siiyo magaaladani Berbera ee uu sharaxan yahay inuu ka noqdo xildhibaan golaha deegaanka ee magaaladaasi Berbera. magaalada Berbera waa magaalo qadiimiya oo magaalooyinka ay ka mid tahay ugu faca weyn magaalooyinka Soomaalida ama dhulka Soomaalida degto magaalooyinka ugu taariikhda iyo faca weyn ay ka mid tahay waa magaalo el dhaqaale ah markii hore wixii Soomaaliya la isku oran jiray el dhaqaale ahayd iminkana Somaliland isha dhaqaale ee ugu weyn ee qaranku ku taagan yahay ay magaalada Berbera ay tahay waxa ku taala marsada ugu weyn ay ka soo degaan dhammaan gaadiidka baddu oo waxa ay leedahay badweyn badda cas la xiriirsan waxa ay xuduud la leedahay magaalada Berbera meelo kala duwan iyo gobollo kala duwan oo kamida gobollada Somaliland ay qayb walba ka soo gashaa magaalada Berbera waxa ku nool population kala duwan waa magaalada kaliya aan oran karno waa magaalo la wada leeyahay oo reeraha Somaliland dego oo dhan way ku nool yihiin oo deegaan bay ka yihiin intooda badan magaalooyinka kale waxa laga yaabaa inay reero gaar degaan ama qolo iyo laba iyo saddex qolo ay degaan waa suurtagal laakiin magaalada Berbera dadka reer Berbera waxay ka kooban yihiin dadka reer Somaliland oo dhan iyo dad aan reer Somaliland ba ahayn oo hore ugu noolaan jiray Hindi iyo Carab iyo dadka noocaas leh ay ka mid yihiin magaalada Berbera waa magaalo xadaariyad iyo ilbaxnimo badan ay ku duwan tahay magaalada Berbera waxa ay leedahay waxyaabo fara badan oo caan ah waxaana ku duwan taariikh fara badan waa magaalo dhinaca dalxiiska marka laga hadlayo Batalaale ay ku taalo oo meelaha ugu dalxiiska fiican leh Somaliland ah marka taariikhda Berbera hadii isnaano si guud uga warrama kama gayoonayno horey waxa isaga soo sharixi jiray magaalada Berbera xildhibaano kuna guuleystay haddana murashaxiin ayaa hadda soo sharaxay si ay qayb uga noqdaan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Berbera hadda murashaxiintaasi ayaa ka mid ah maxaad leedahay murashaxiintaasi waad ka duwan tahay ama waa saameynad kaga leedahay ka duwan murashaxiintaasi ku loolamay iyaguna inay ku guuleystaan waxyaabahan soo karo waad kaga duwan tahay shakhsi ahaan waxa kamid ah musharaxiinta hadda ay soo sharaxday walow ay dhalinyaro ku jiraan anigu waxaan kamid ahay dadka dhalinyarada ay ku jira oo marka dhalinyarta ayaan kamid ahay hadda ay soo sharaxay aad bay u yar yihiin laakiin dhalinyartaas aan kamid ahay waxaan kaga duwanahay waxa laga yaabaa musharaxiinta soo sharaxi jiray markii hore inay ahaayeen dad aan aqoon ahaan iyo ma aragtay dhalinyar ahaan iyo itaal ahaan iyo tamar ahaanba aan dhisnayn laakiin waxa maanta ilaahay mahadiya in aniga laga yaabo inay weheliyaan iyayba badnaaneen dadkay soo sharaxay mid iyo laba dee aqoon-yahan ah oo dhalinyar ah oo garanaya waxa loo doortay iyo waajibaadka qaranka ka saaran iyo magaalada loo dooranayo marka waxyaabahan dee kaga duwanahay wuxuu baa kamid ah inaan dhalinyaro ahay inaan aqoon-yahan ahay inaan ka xogogaalsanahay xildhibaano badan ama musharaxiin badan oo anigu aan kaga xogogaalsanahay shaqooyin soo qabtay oo shaqooyinka xogogaalka inta badan lagu noqdo ah oo shaqooyinka warbaahinta iyo shaqooyinka arrimaha bulshada iyo samafalka iyo wax noocaas marka shaqooyinka aan soo qabtay waxay isiinayeen xogogaalnimo fara badan oo ka duwan xogogaalka ay yihiin ama xogta ay hayaan dadka inta badan la doorto ama sharaxa marka inahaasi ayaan kaga duwanahay marka cabashooyinka oo dhan waxa xalinaya in dadka la dhiso oo horta dadka waqti la siiyo input la geliyo dadka marka input la geliyo waqti badan la siiyo wacyigelintooda dhisidooda kor u qaadida aqoontooda tayeyntooda bulshada oo dhan garanaysa oo bulshada iyadu maalin walba kula timaado hawl qabanayo hawsha noocaas baan qabanaa halkaasaan doonayna wada ka saarno halkaas biyo fadhiisno wada waxaan doonayna ka qabano waa inaad wixii ay doonayaan badda dhig karta marka bulshadii waa dhistay iyagii baa rababa inay
marka anigu waxaan ku dadaalayaa sidaan horeba u sheegay inaan dadka dhiso ayaan ku dadaalayaa wacyigelinta aan xoojiyo kadibna ay dadku igala shaqeeyaan sida aan magaalada u dhisi lahaa waxaana laga yaabaa haddaan sanadka ugu horeeyo dadka dhiso in 4 sano ee ka dambeeya ay intii ay golo deegaan ama maayir quri uu ka qaban lahaa magaalada boqol jibaarkeed ay dadku iyagu ka qabtaan oo ay ku qabtaan istiraatiijiyadii iyo nidaamkii aanu dejinay oo ay iyaguna fulintoodii iyo shaqadoodii iyo hawshoodii ka guteen oo ay nagu taageeraan oo ay nagu support gareeyaan marka waxaan jecelahay inahaasi halkaa la soo gaarsiiyey meel in badan ka fog ayaanu gaarsiin doonaa haddii ilaahay ka dhigo maxay tahay fariinta dhalinyarada iyo aqooyahanka iyo badi bulshada degan gobolka Saaxil aad u dirayso maxay tahay fariinta aan u dirayaa waxa weeyaan ugu muhiimsan in ay dadka reer Berbera ee gobolka Saaxil jooga aqooyahankooda iyo dhalinyartooda ay u sara kacaan iyo waliba guud ahaanba marka aan ku daro gobolada kale ee Soomaaliland oo la xajeclo badan iyaga laftarkooda iga hayso inay u sara kacaan in ay magaalooyinkooda iyo qarankooda ay dhisaan oo ay ka qayb qaataan siyaasadda qaranka sababta ay uga qayb qaadanayaan waxa weeyaan maanta iyaga ayaa wadankii wax u bartay iyaga ayaa xoogii dalkan ah marka odayaasha iyo waalidkeen waxay noo noqon doonaan la taliyayaal inaguna waxay noqon doonaa fuliyayaal iyo shaqeeyayaal marka maanta waa maalinteeni qof kastaaba maalin buu leeyahay waxaan u arkaa aqoonyahanka iyo xoogga dhalinyarta ee qarankan inay maalintiisi maanta tahay marka baaqa aan u dirayaa waxa weeyaan in siyaasadda laga gaban meel kasto ay kula galayso inaad la gasho waxa la dhaafay xilligii ay shaqeynaysay waxyaabaha aan meelina gaarsiinayno dhan bal maanta waxaanu tijaabinaynaa awoodda dhalinyartu halkii qaranka iyo magaalooyinka gaarsiisay bal magaalooyinka dhalinyartiisii waliba arrimaha bulshada iyo aqoonyahankiisii iyo kuwii warbaahintu bal ha ku tamariyaan inay doorkan saaxadda soo galaan oo ay maamulka ka qayb qaataan Idris Maxamed Aynaan Goobjoog gudaha magaalada Hargeysa.